الرحمن الرحيم Soomaali meel kasta joogto waxa idinku salaam alaykum rahmatullahi wa barakatuh habeenimada waxa isoo galay Facebook waa yaabanaha ayaamaan meelaha la iskaysta magaalada ahba haddana waxaan daawaday Facebook ayaan furay waxaan ku arkay wasiirkeena qaaliga waliba aad iyo aad mutaqaana aan saaxiib u nahay wasiir xayr wasiir dawladda ee mutaqaana wasaaradda maaliyadda oo ka hadlaya muxuu ahaa ishii baarlamaanka baad marka waxa wali la yaabanahay bal dhibaatada mutaqaana aniga kala haysta ama gudubta aan kala galnay anaga iyo Puntland hoos waxaan qiina aniga Puntland oo mutaqaana iyo koonfur galbeed oo aad walaalo ah waxaan qiina koonfur galbeed iyo mutaqaana Puntland oo dad oo ehel isu ah waxaan qiina koonfur galbeed iyo Puntland oo mutaqaana Puntland wax ka kala raadinay ilaa xadka colaadaha ilaa xadka taas u leeyahay oo aflagaadin shalay ee mutaqaana madaxweynihii mutaqaana maamul goboleedka Puntland isagoo la mutaqaana nin diisoor ka yimaado oo dacas wata isagoo laha war goorma xadka aniga aan kala tagnay war ummadii mutaqaana socoto bal arintan waa la yaabanahay aniga waa la yaabanahay marka hadii ii shoogay maanta mutaqaana caawa wuxuu xuseeyaa wasiirka wuxuu ahaa ishay wasiir dawladda ee wasaaradda maaliyadda maanta wixii baarlamaanka ka dhacay waa arkaysay waxa xukuumadan waa la yaabanahay maalin walba mutaqaana wasiirka ida ka tirsan sidoo iskaga hadlaya warqadaha ay ka soo baxay oo meel u socda anaga aan fahmaynin iyo mutaqaana cid oo ka dambayso aan fahmaynin marka waxaan waa la yaabin yahay xukuumadda runteeda mutaqaana astaan waxay baleedahay dib u heshiisiin marka mutaqaana fariinta caawa waxay ku socotaa mutaqaana siihayaha maamul goboleedka koonfur galbeed mudan sheekh xasan sheekh aadan ay ku socotaa kulli waa ogahay mutaqaana kama u baaqanay Puntland tamidal madii ka darneeday ayuu mutaqaana la aflagaaday uu sahal kalma ka dhihmo laakiin wafdiga oo raba inay Puntland shirka u tagaan hadii ay jirto way wafdi oo koonfur galbeed haduu wato shir xasan waay waxaan rabaa inay ka wadawaan inay shirkaas ka qayb galaan because meel taxgil ku haysan ma aha meel aflagaad aan ku haysan waay maxamed u dambeeyay waa kii hadeerna sida waay waa arkaysay maanta mutaqaana marka waxyaabuhu ku hadlayay wasiirka marka mudana wasiir waxaan filayaa ilaa dastuurka waqti u heeyo ma mustaqaala bahasha xisaabisteeda ma ka badato ma aqaani marka waqti ma u haysid dastuurka mutaqaana sida waa may maxaa tiri waay dastuurka mutaqaana ayuu ku yaala afka mayga ah marka xaqna ummadda hadaad ka seen mutaqaana Soomaali ninka uu turjubaanay